faahfaahinta wararka iyo macluumaadka aan ka helayno meelo fara badan oo ka mid ah gobolka Sool ayaa waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah ay wadaan ciidanka dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa la yiraahdo BMBF xadka ay wadaagaan Nugaal iyo Sool aaga degmada Shaxda iyo sida lamida magaalada Ceelbuur ilaa magaalada Baran ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan markan waxay u badan tahay inay gooda isdari karaan ciidanka la yiraahdo BMBF iyo ciidanka beesha warsangeli iyo kuwa dhulbahante haddaba daawade maxaa ka socda aaga gobolka Sool faahfaahin iyo macluumaad ayaan ku soo gudbin doonaa dabcan dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolada Sool iyo Sanaag waa ay kordheen labadaas gobol waxa isku haya Puntland iyo Somaliland iyo maamulka waqooyi bari dhulbahanta ay warsangeligu dabcan maamul ay dhisteen waxayna u bixiyeen waqooyi bari laakiin maamulkaas waxa diidan oo sinaba aan raali uga ahayn maamulka la yiraahdo Somaliland iyo kala la yiraahdo Puntland waxayna xoog xeelad juhdi iyo dhaqaale ku bixinayaan burburinta maamulkaas warar iyo warbixino hore halkan idinkugu tabiyay ayaan daawadayaal idinkugu sheegay inay jiri karto kala aragti duwanaansho weyn oo u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland laakiin haday xaaladdu sidaan ay ku sii socoto wax badan ayaa isbedeli kara sababtoo ah xaajadu waxay tagaysaa meel aan waxba laga qaban karin haddaba si aan faahfaahin u helno waxaan idila wadaagayaa xogaha halkaas laga helayo wararka halkaas laga helayo ayaa dabcan waxay tilmaamayaan in ciidamo ka yimid aaga magaalada Shaxda oo ka tirsan gobolka Sool kuna taala xuduudda Nugaal iyo Sool inay ciidankaasi damceen inay magaalada banaankeeda howlgal ka fuliyaan laakiin waxay kala kulmeen weerar ciidamo ka tirsan kuwa BMBF inkastoo dagaal xoog leh uusan halka ka dhicin haddana macluumaadka la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in wixii isku horimaadka ahaa iyo xabad isku tuurtuurkii koobnaa ee dhexmaray ciidanka BMBF iyo ciidanka dhulbahantaha ama beesha warsangeli in ay tani keeni karto dagaal weyn oo halkaasi ka dhaca maamulka waqooyi bari tiro dhowr jeer ayuu sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan cid walba oo lagu tuumo in ay carqaladaynayso nabadda iyo xasiloonida gobolka Sool xaajadu markay halka joogto dib aan ku xasuusiyo 3 bilood ka hor degmada Shaxda wixii ka dhacay degmada Shaxda hadda ka hor waxa tagay wasiiru dawlaha wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Puntland iyo wasiiru dawlaha madaxtooyada ama agaasimka madaxtooyada Puntland waa laba nin oo dhulbahanta oo Shaxda ka soo jeeda waxaana markii ay damceen inay magaalada galaan ka hor istaagay ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka waqooyi bari halkaasna waxa ka dhashay xiisad ciidankii ay wateen wasiirada iyo kuwii beesha dhulbahante ayaa xabado kooban isku tuuray xaaladaas waa la dejiyay oo ciidanka warsangeliga iyo kuwa dhulbahantaha magaalada waa laga soo saaray laakiin hadda xiisada halka laga helayo iyo dhaqdhaqaaqa halka socda ayaa waxa uu ku iftiiminayaa in xaaladdu hadda ay marayso meel xasaasi u ah haddii xaaladan aan si degdeg wax looga qaban isla markaana aan loo soo gabagabeyn dhacdooyinka halka ka jira dad badan waxay aaminsan yihiin in xaaladdu ay tagi doonto meel waxba laga qaban waayo laakiin aan ku xasuusiyo inay jirto kala aragti duwanaansho la xiriirta Somaliland iyo Puntland oo ku aadan sida loola macaamilayo maamulka waqooyi bari khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin maamulka waqooyi bari xilligan waxa ku soo wajahan dagaal weyn oo ay tahay in ay markan u tafaxaytaan maamulka waqooyi bari iskana celiyaan haddii duulaan lagu soo qaado aaga gobolka Sanaag sidaas lamida wararkan caawa ka helayna waxay tilmaamayaan in halkaas laga dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan dhaqdhaqaaqyadaasi intooda badan waxay ku saabsan yihiin xaaladaha halka ka jiray saacad walba waxa laga cabsi qabaa dagaal halkaasi ka dhaca ila wareedi aan la hadalna waxay tilmaameen in xiisada halka ka jirta haddii ay sina ku sii socoto xaaladdu ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin laakiin wararkii macluumaadka la helaya ayaa waxay tilmaamayaan in sheekadu hadda ay meel aad u xasaasiya marayso isla markaana dhinacyadu ay hub urursi wadaan maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale maamulada kale ee daris kala sida Puntland iyo Somaliland ayaa iyaguna markan waxay ku jiraan xaalad allow sahal ah waxaana xogta aan helayna ay tilmaamaysaa in saacadba saacada ka dambaysa la filan karo dagaal dhexmara maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale maamulada daris kala si walba ha ahaatee xaalada halkaasi ka jira marka isku geegeysid waxay xaaladdu ku tusinaysaa ama ay kugu riixaysaa in gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag uu qarka u saaran yahay dagaal walow dhinacyada halkaasi ku sugan mararka qaar isgacan saaraan haddana Puntland iyo maamulka waqooyi bari ayaa markan isku arki doona fagaarayaasha dagaalka gobolka Sool halka fagaarayaasha dagaalka gobolka Soolna hore ay ugu hardameen waqooyi bari iyo sidoo kale maamulka Somaliland isku soo wada duubo xaalada halka ka taagan waxay sidoo kale iftiiminayaan inaysan xaaladdu ahayn mid sahlan mar walbana la filan karo dagaal weyn oo halkaasi ka dhaca daawadayaal
wixii warar ay ku soo kordha waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkeena dambe habeen wanaagsan.